mahadsanid mudana madaxweyne mar kale inaad isiisay fursadda hadalka ka hor inta aan sii anbaqaadin waxaan rabaa inaan sameeyo faallooyin dhaadheer anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya si aan si toos ah uga jawaabo eedeymaha uu soo jeediyay wakiilka Israa'iil ee iga horeeyay mudane waxaan soo bandhigi doonaa 3 qodob qodobka koowaad falalka ay ku kacayso awoodda gumaysiga ee Falastiin iyo guud ahaan gobolka si aan wanaagsaneyn ayaa loo diiwaan geliyay falalkaasi waxay si cad ugu xadgudbayaan sharciga caalamiga ah waxaan maanta iyo marar badan ba aragno waa falal lagu argagax gelinayo dadka rayidka ah dambiyo ka dhana bini'aadanimada barakicin qasaba oo lagu sameeyo bulshada dhan gaajeen dad aan waxba galabsan dilid iyo dhaawacid boqolaal kun oo qof sameeynaya dhammaan falalkaasi ayaa maanta in hor imaanaya isagoo nagu shaabadeynaya waxay ugu yeeraan xasuuq iyo arrimo lamid ah runtii waan ka argagaxay hadallada aadka u xadgudubka ah ee ka soo yeeray wakiilka Israa'iil haddii aan ka hadlayno xasuuq waa Israa'iil tan si cad indhaheena hortooda ugu geysanaysa maalin kasta wuxuu matalayaa dawladdiisa in ka badan 70,000 oo qof rayid ah oo ay ku jiraan caruur haween waayeel dhaqaatiir shaqaale caafimaad iyo bukaanno ku jira isbitaalada iyadoo burburinaysa kaabayaasha nolosha isla markaana si ula kac u gaajaysiinaysa dadka Gaza inuu halkaan ugu hor yimaado golaha sharafta leh kuna eedeeyo Soomaaliya inay xasuuq geysatay waa arrin aad u yaab leh oo aan la rumaysan karin arrintani waa wax lagu qoslo oo aan la rumaysan karin qodobka kale oo aan doonayo inaan ku daro ayaa ah inuusan waxba ka aqoonin waxay Soomaaliya tahay halka ay Soomaaliya joogto iyo waxay Soomaaliya u taagan tahay waxaan u arkaa in taariikhda uu ka hadlayo ay tahay mid uu si gaar ah maskaxdiisa uga samaystay aan wax yar ka baro arrintan Soomaaliya waa hal dal hal shacab oo leh hal diin kuwaasi oo si wada jira ugu halgamay xornimada gumaysiga sidoo kale Soomaaliya maanta waa dal si midaysan ula dagaalamaya ururada argagixisada guud ahaan ee Afrika ka jira iyadoo hal shacab hal diin iyo hal qowmiyada marka aad ka hadlayso Somaliland-kii hore ee Ingiriisku wuxuu ka koobnaa 2 gobol maanta gobolka waqooyi bari oo ka kooban qiyaastii 45% dhulka iyo dadweynaha wuxuu si buuxda uga mid yahay dawladda federaalk ee Soomaaliya waxa hadda laga hadlayaa waa waqooyi galbeed oo isna wajahaya dhibaatooyin u gaara qayb weyn oo kamid ah waqooyi galbeed gaar ahaan gobolada u dhow xadka Djibouti ayaa si cad ugu soo horjeeda sheegashada aad ka hadlayso dadka aad ku tilmaamayso isaaq xasuuq loo geystay arrintani gabi ahaanba waa been ma jirin wax xasuuq oo ka dhacay Soomaaliya waxay martay dagaal sokeeye dagaalkaasina wuxuu lahaa saameyntiisa gaarka waxaan aaminsanahay in dagaalkaasi sidoo kale dibadda laga maalgeliyay sidaa darteed in halkaan nala hor yimaado laguna cashiriyo bini'aadanimo xasuuq xuquuqda aadanaha madax bannaani iyo dimuqraadiyad annagoo og waxa maalin walba aad sameynaysaan waa aflagaad dacad mana aqbali karno inaan arrintaasi ka aamusno annagoo ka jawaabin mahadsanid mudana madaxweyne waxaan u mahadcelinayaa wakiilka Soomaaliya hadalka uu jeediyay